halkan waa xawaalabay waxa uu ku yaalaa xaafadda Horseed dadkan waxay ku kulansan yihiin sidii loo aasi lahaa Cismaan Ibraahim Cismaan oo habeennimadii xalay aabihiis uu ku gooracay magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadda Horseed ehelada wiilka ayaa la tiiraayeensan waxa isweydiin mudan sababta keentay in aabba uu wiilkiisa gooraco waalidiinta odayga ayaa inoo sheegay in xogaa madaxa looga jiro aabbe Ibraahim Cismaan laamaha ammaanka ee dawlad goboleedka Hirshabeelle waa booliska iyo nabad sugidda ayaa ku guuleystay in gacanta ay ku soo dhigaan Ibraahim Cismaan oo ugu dambeyn laga soo qabtay tuulada Halgan waxaan leenahay miskiinkan sakaraadka Ilaahay u fududeeyay su'aasha Allah ku dhibo waxaan markaati kanahay inuu shahiid yahay markaysa naf walba sidaan oo kale ay soo dhimay ay u dhimanaysaa waxaan leeyahay horta aan duceyno miskiinkii markay dhibkaan geystay inuu qalbiga Ilaahay u dajiyo oo markaysa qalbiga Ilaahay markaysa wixii hadda ka dhacay hadda kadib inuusan Ilaahay ku celinin horta Ilaahan uga bareynaa goobta uu shilka ka dhacay ayaa ah gurigan oo ay ku noolaayeen Cismaan Ibraahim Cismaan iyo aabihii iyo caruur kale oo la sheegay in ay ka yaraayeen Cismaan musqushan dhexdeeda ayaa la sheegay in uu ku dhex gooracay aabbe Ibraahim Cismaan Abuukar Cismaan oo lagu garan og yahay walaalow oo la dhashay Ibraahim Cismaan ayaa faahfaahin ka bixinaya wiilkaas waa sida ay weydiinayso waa sax adeeraan u ahay walaalkay iga yaraa dhalay qadartii Ilaahayna way badan tahay maho marka kulli nafsin daa'iqatul mawt waaye naf walbana midku waa dhimanaysaa cid walbana waa dhimanaysaa marka cunugaas aabihiisa dilay cid kale ma dilin sababuna u ahaabo marka wax kale oo dhib ma jiro wixii dhici jiray adduunyada ka dhacay nin walbana wuu dhimanayaa marka qadartaas dhacday wax kale oo ziyaado ma jiraan ninkaasna caafimaadkiisa ma fiicneen bariyahan dambo oo xagga madaxa xogo ma fiicneen marka hadda waa kaas asagana waa xiran yahay cunugina waa kaas waa soo dugnay khilaaf ma jiro cunugii odayga ka dhaxeeyay wax khilaaf oo cunugii asaga ka dhaxeeyay mala adalada Ilaahay iska timid hore u qabay oo marmar ah oo bilooyin 5 bilood 6 bilood ka bacdi mar ku soo kaco maxamed siyaad cali canjeex oo ah taliyaha ciidamada booliska degmada Jowhar ayaa ka sheekeynaya qaabka loo soo qabtay maanta shirkan wuxuu ku saabsan yahay dhacdo shalay galab maqribadii ka dhacday magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadda Horseed marka waxa dhacday aabba ayaa wiilkiisii ku dilay xalay maqribadii xilligaada 12 saac ilaa maqribada u dhaxayso alxamdulillah Ilaahay qadartiisa meeshka waa tagnay ciidamada booliska meeshii tagana ku baxeen dhibka meesha ka dhacay ay arkeen kadibna waxay daba galeen ninkii yani maarta dhibka geystay oo aabba u ahay wiilka oo dhala dilay saadarteed waxay noo soo gashay xalad 10 saac bar inaan ka soo qabanno tuulada Halgan sida darteed maanta wuxuu ku xiran yahay saldhigga booliska degmada Jowhar booliska ayaana gacanta ku hayo wixii faahfaahin oo dambe oo yani maarta sheeg maxay ahayd aan kala kulana ama baarisiisa ka soo baxnay dib ayaan u wadaagi doonaa warbaahinta Duwaleer insha Allah dibka sababaha dhaliyay hadda baarisi ku jirta arintii ninkiin dhib ka geystay uu xiran yahay يعني ما رأيت يا بوليس وأنا ما كهر دعك كرنا بركي قفكو معقول حتى إنكم إنه أموالنا كريو أما مركز أي حالة دي إسرع عادهن أما بلد كان واد أكتر مخدرات كيسة بدل مخدرات إنه على صورة قال لكن أنت سباريس يكون جت $1 إن شاء الله مركز جوابته قدام بسنة وحنا قاعد يسدونا محكمة ده يخصيصه إيوه يعني ما رأيت يا صحافة ده $1 بيرجعنا الله هو قديقو سدح سؤال يا لو يجيدونا من ربك ومن نبيك وما دينك لا تفسين مايو Cismaan Ibraahim Cismaan waxa lagu qiyaasay da'diisa in ay u dhaxayso 15 ilaa 14 waxa uu bariyay waa cusub waxa uu hiigsanayay mustaqbal fog waxaana loo sheegay in uu rajaynayay maantadan oo sabti ah in uu ambabaxo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya si uu qaraabadiisu u soo salaamo hase yeeshee tii Rabbi ayaa ku timid oo waxa lagu sababay aabihiis oo habeennimadii xalay ku geeriyooday Jowhar Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa raadiyaha telefishinka dalsan Jowhar